hanti lama arkeen aman cidi uma ledeen aqoonyaha lama heleen sidayo wadeen askari baan doonayaa. bismillaahi raxmaani raxiim. shirkaygan jaraa'id maalinlaha ah ama 6 biloodlaha ah ama sanadlaha hadba desaan u helo maanta waxaan ku qabsanayaa beertan cidlada ah cidiba joogin kursi baan xitaa u soo qaatay. shirkayga jaraa'id maanta waxaan kaga hadlayaa ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo xuquuqdooda iyo sida waxa ay yihiin ay ka yihiin Soomaaliland inkastoo aanay fiicnayn anigoo qof shacab ah inaan ciidanka ka hadlo waayo ma habboona waa xarig qofka shacabka ah inuu ciidanka ka hadlo inuu direyska ciidanka soo qaato inuu nin labisan oo direyska sita kalarka qabsado intaasoo sidoodii xarig ku yihiin oo waan ogahay haddana laakiin maanta anigaan hoos ugu dhaadhacayna waxaan ka hadlayaa ciidamada Soomaaliland kala duwan guda iyo dibadba waxaan leeyahay haddaynu nahay dawladda Soomaaliland dawladdu waxaynu ku nahay waa ciidanka dawladdu waxaynu ku nahay waa ciidanka run ahaantii dawlad laba oo isaysata oo amar kala qaadato oo kala dambayn leh oo hawlaheeda iyo waajibaadkeeda qarannimo gudata waxaynu leenahay waa ciidanka ama gudaha jooga ama dibadda jooga ama badha joogo markaasi waxa jirta waxaynu ganacsado waxaad ganacsada ku tahay waa ciidanka baarlamaanoo waxaad baarlamaanka ku tahay waa ciidanka guurtii ay waxaad guurtii ku tahay waa ciidanka dad iska shaqaysanaya waxay ka shaqaysanayaan waa ciidanka keeriyooluhu wuxuu keeriyoonka wax ku qaado wuxuu keeriyoole ku yahay waa ciidanka sidaas awgeed ciidankeenu waa ciidan iimaan leh waa ciidan qaran waa ciidan dhab ah sida awgeed haddana waxa la inooga baahan yahay shirkadaha ganacsatada cid kastaba inay isbarbar taagto ciidanka oo aan lagu hadlaynin dawladda quraan dawladda ciidanka siday tiri waxa weeye war adu ciidan ku yahay ninka ciidanka intuu guri uu leeyahay seexda waa wax tirsan ama maba dhacdo dhaxanta inagu inoo taagan yahay habeenkii inagu inoo wareegaya inagu gaar inagu inaga haya waa deer inagu meersan sida awgeed inaynu garan weyno waxaynu ku nahay dad iyo ummad iyo qaran waxaynu ku nahay inaynu garan weyno waa mushkilad waxa weeye in la ilaaliyo dayaca ciidanka in la isbarbar taago in qof kasta iyo muwaadin kasta waxa la oranayaa madaxweynuhu muxuu ka qabtay ciidanka war madaxweynuhu muxuu ay imisa arimood buu qabtaa waxa weeye dadku wuxuu dadka war mashiinidaynu ka liidanaa shinidu intay meel gashaabay boqorkay dooratay ilaashatayo meel dhigatay iyaga soo adeego shaqeeye inaguna islaantii keeriyoona weyda waxa leeyahay madaxweynaha waxa leeyahay keeriyoona iyagii war waxa kan intaynu ka baxno ummaddu waxay ummad ku tahay farkaliye fool ma dhaqdo inaan cidna lagu halaynin inaan shacabku cid ku hadlaynin inaan ganacsatadu cid ku hadlayn inaan shirkadu cid ku hadlaynin madaxweynahana waxaan leenahay awoodda ugu badan waxaad saartaa maanta waxaynu halbowlaheenu waa ciidan halbowlaheena iyaynaan dayicin awoodda ugu badan cidna ha kala tashanay waxaad saartaa ciidanka mudnaanta koobaad waxaad siisaa ciidanka kala duwan ee qaranka Soomaaliland ama gudaha jooga ama dibadda jooga ama badha joogi waxaynu dawlad ku nahay waa ciidanka inaad ilaaliso inaan lagu leedin dhex marin inaad ahmiyadda ugu badan siiso ciidanka waayo ma ahaanayno wax jiraba de ma ahaanayno ruuxantii ma nihin heegan waxa yihiin bacadka waxay joogan qorraxda dhaxanta meel kama galaan oo bacadka kama harsadaan oo habeenkii ma seexdaan waxay u soo jeedaan inta u heeriyeen waa inagu haddaynu markaa garan weyn markaa madaxweynaha waxaan leenahay xilka ku saaran uu balaaran yahay inkastoo meel ka saaba qabyo ku tahay awoodda ugu balaaran waxa saarta ciidanka ciidanku waa halbowlaha dhiigu maray inoogu weyn markaasi ciidankana waxaan leenahay war ilaa waxaan nahay geedka harsanayseen baanu nahay waanu isognahay haddaan naga dhaqaaqdaan inaan bacadka istaagayno sidii awalba aan ugu direedeen waxa ka heleysaan ciidiina iyo calankiina ka heleysaan abaalkiina cidna ka suguna sida awalba noo ilaalinayseen heeganka noogu ahaydeen ilaahay baa idinka jisaay marinayay sidii noo ahaada waxaanu leenahay madaxweynahana حتى وحي لو قرشيه ciidanku mala waxba dhexda ka soo yar noqday ha gaadheen ciidanka ha gaadhin
waxa la yidhina waa khalad ee waxaan maqlay xitaa bacadjooga askariga faranta jooga uu leeyahay markuu fasax yar qaato waa laga jaraa waa yar maqlay dee ruuya baan waxay wallahi war maayo laakiin waxa weeye markaa waxaan leenahay ilaalinta qaranka cidda heeganka u ah ee habeen oo maalin u soo jeeda waa ciidankuna waxaan leenahay cidna ha nagu halaynana ummadiina dalkiina dawladdiina cidna ha ku halaynay sida heeganka ugu haydeen ilaahay baa inoo kiindiray sidii uu ahaada إن شاء الله لكن وحن كده ذلك حقوق الذين هدي عاصمات هي هدي بيت هي هدي وحكستها هي هدي سات هيبة إنا هشام مدحوينا عيدنك وحوي حتى قريه لدي سيو وحكم وحمضن الورد صعيدنك وحفي عن إن عرورته ذوقانو إن الحاسكو ذوقانو قريه سمي ما ضيسقو عرورتي سلام عياره وما شوهيدو مركا إن نقول إلى إنه واجب نصار المدحوينه aad aadna waxaan u salaamayaa ciidamada qaranka meel ay joogaanba bad iyo bari iyo gudahaba aad baan idin salaamaynaa dadaal baan idin geli doonaa dalkiina iyo dadkiina ka heli doontaan ilaahay idankiiba wixii aad doonaysaan ee xuquuqdiina insha Allah maalin dhow qof waliba askari buu jeclaan doonaa maxaa askari u qoran weyday insha Allah sidaan ku rajo weynahay ilaashada wadankiina idinkunba wadanka awalba ilaalinay iminkana ilaashada annaguna intii aanu karaankiya waxa weeye maanta waxaan u soo jeesanaynaa dawlad iyo shacabba shirkado ganacsato tijaar cid kasta waxaan u soo jeesanaynaa ilaa waxaan wax ku nahay waa idinka inaan idin soo jeesano ahmiyadda koowaad ee siino aad iyo aad baan idin salaamaynaa waa salaamantiin ciidamada qaranka gudo iyo dibad iyo badba